السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi waxaynu warbaahinta adduunka ka wada daawanaynay madaxweynaha Yukraaniyiinta Volodymyr Zelensky inuu gaaray magaalada Jidda halkaasna uu kaga qayb galay shirki ay jaamacadda Carabtu ku lahaayeen madaxweynaha Yukraaniyiinta ayaan horey loo saadaalinayn inuu shirka ka qayb gelayo balse waxa uu ku tegay si degdeg ah halka Zelensky ma ahayn shakhsi ay kaliya ku cusbaa sanadkan shirka jaamacadda Carabta uga furmay Sacuudiga sidoo kale kulanka 12 sanadood kadib waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad haddaba barnaamijkan ayaynu ku dul istaagaynaa waa maxay sababta ugu weyn ee Zelensky loogu casumay kulanka iyo isataacida ka dambeysay waxaanu kala go'goosanaynaa khudbaddii uu halkaa ka soo jeediyay oo dadyo badan oo Carbeed iyo kuwa Islaam ay u arkeen inay ahayd mid bahdila ugu horreynba madaxweynaha Yukraaniyiinta waxaa shirka ku casumay Maxamed bin Salmaan ka Sacuudi Arabiya oo isagu aan nin dhalinyaro ah doonayeen inuu wax weyn ka bedelo dalkiisa inkastoo waxyaabaha uu doonayay inuu dalkiisa ka bedelayo dalalka Carbeedba aan ahayn kuwa dhinaca wanaagsan u socda una yahay nin isla weyn faanna badan Maxamed bin Salmaan ayaa haatan isagu danaynaya inuu muujiyo siyaasadaha arrimaha dibadda ee Carabta balse waxaanu ognahay dowladaha Carbeed weligoodba inay ahaayeen diblomaasiyad ahaan kuwa aan la mid ahayn dalalka adduunka ma aha dowladda dalalkooda dimuqraadi ay yihiin doorashooyinna ay ka dhacaan taasuna waa mid mar walba ka hor istaagta inay ka hadlaan goobaha waaweyn ee adduunka saamiyadiisa lagu kala qaybsado haatanse waxa uu bin Salmaan danaynayaa inuu arrintaa wuxuu ka bedelo sidoo kale caasimadda uu madaxweynaha Yukraaniyiinta Volodymyr Zelensky u fidiyay ayaa la sheegay inay tahay mid uu ku xodxodanayo dalalka reer galbeedka ah gaar ahaan dowladda Maraykanka oo uu muujinayo Carabtu inay dhankooda u xaglinayso dowladaha Carbeed ayaa waxay ahaayeen kuwa ku kala qaybsan dhowrkii jeer ee qaramada midoobay looga qaaday codadka xaaladda dalka Ukraine intooda badanna waxay aaminsan yihiin dhibaatada Yurub inay xaliyaan reer galbeedku iyaguna aanay labada dhinacba seegin waa dowlado jecel inay isku wataan Ruushka iyo weliba reer galbeedka dalalka Carbeed weligoodba waxay ahaayeen kuwa sidaas sameeya maadaama aan cidina cadaadin jirin marka laga reebo in shidaal looga baahdo maadaama ay dalalka Carbeed yihiin kuwa siyaasad ahaan aan adduunka wax saameyn oo weyn ku lahayn haddaba khudbaddii uu halkaas Zelensky ka soo jeediyay ayaa waxay ahayd mid uu ku xodxodanayo dalalka waxa uu hadalkiisa ku bilaabay inuu doonayo inay kala xoreeyaan dadkiisa dalka Ruushka oo uu sheegay inay dadkiisa ku xareeyeen shabaqyo yaryar sida jiirka oo kale shabaqyada ayuu ka wada xabsiyada Ruushka dowladihii Carbeed ayuu u sheegay qaybtood inay ka gaabiyeen inay Ukraine la saftaan waxa uu sheegay dowladahan inay ka mid yihiin kuwa dowladda Ruushka u janjeera waxa uu sheegay in looga baahan yahay dalalka Carbeed inay dimuqraadiyadda u heeliyaan soona garab istaagaan dalkiisa intii Zelensky uu khudbeynayay waxa uu amaanay dowladda Sacuudi Arabiya oo ku amaanay kaalintii ay ka qaadatay inay Ukraine iyo Ruushku kala bedeshaan boqolaal askari Zelensky isagoo beer la xawsanaya waxa uu Carabta u sheegay inaanay marray laawin gobolka Crimea dalkiisa Ruushku kala wareegay inay weligoodba iska lahaayeen deganaayeen dad muslimiin oo la yiraahdo Tatar una haatan isagu doonayo Tatarku inay sidoodii halkaa ugu sii noolaadaan dowladaha Islaamkaana looga baahan yahay inay arrintaa Ukraine ku taageeraan tanayse dadka muslimiinta ay Carabtuba ka xumaadeen waxay ahayd markii aanu kaba hadlin xaaladda dalka Falastiin waxa uu sheegay in adduunka dhibaatooyin dagaal ay ka socdaan waxa uu soo qaatay dalkiisa Tatarka reer Crimea ugurka Shiinaha waxaase uu iska ilaaway inuu ka hadlo xaaladda Falastiin maadaama isaga qudhadiisu uu yahay nin Yahuudiya kulanka oo Zelensky kaga qayb galay magaalada Jidda ayaa waxa uu yahay mid aan wax weyn soo kordhin maalin dabadeedna dowladda Ruushku halkaa waxa u dirtay wafdi heer sare ah uu hogaaminayo wasiirkeeda arrimaha guduhu si gebi ahaanba ay u baabi'iso raadadkii uu halkaa kaga tegey isku soo wada duuba booqashadii uu halkaas Zelensky ku tegey ma ahan mid waxba u soo kordhinaysa Yukraaniyiinta marka laga reebo Maxamed bin Salmaan inay adduunka tustay inuu doonayo inuu xoogaa sare u qaado diblomaasiyadda Carabta